Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena diblomaasi. Dowladda Shiinaha ayaa la sheegay inay ku fashilantay heshiis nabadgelyo ay la geli lahayd 10 dal oo ku yaala badweynta Baasifiga, dalalkaas oo dhammaantood ah kuwo jasiiradaha aadna u yaryar. Heshiiskan ayay doonaysaa dowladda Shiinuhu inay isku ballaariso koonfurta badda Baasifiga iyadoo halkaa ka lahayd istaraatiijiyad taasoo caragelinaysa dowladaha Australia, Mareykanka iyo New Zealand. bishii la soo dhaafay ayay ahayd dowladda Shiinuhu markay heshiis noocaas oo kale la gashay jasiiradda Solomon Island, taasoo dowladda Mareykanku ay ka keentay su'aal aad u weyn iyo walwal ay ka qabto amnigeeda gudaha. waxaana walbahaarka ugu weyn la soo dirsay xilliga dowladda Australia oo aan dowladda ka fogeyn. balse Shiinuhu kuma ekaan intaas, waxa uu doonay inuu ku darsado dhammaan dalalka kale ee ku yaala halkaa oo ay ugu horeyso dowladda Fiji. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Ying ayaa waxa uu 4 maalmood ugu dambeysay ku sugnaa dalka Fiji, halkaas oo kula kulmay dhammaanba madaxda 10ka dal. Solomon Island oo horey heshiis ula galay iyo 9 dal oo kale dowladda Shiinuhu doonaysay inay hadda heshiis nabadgelyo la gasho. qorshayaasha ay dowladaha u soo bandhigtay ayaa waxa ugu horeeyay qorshayaal soo jiidasho leh, waxaana ugu dimarisay qorshaheeda nabadgelyo ay doonayso halkaa inay saldhigyo ciidan kaga furato. dowladahaas ayay dowladda Shiinuhu doonaysay inay ka faa'iideysato kadib markii dhaqaale xumo ay soo wajahday xilligii uu socday cudurkii aafadaha ee koronaha. waxay u ballan qaaday dowladda Shiinuhu inay halkaas saldhigyo ka furanayso kumanaan jasiiradaha u dhashayna ay shaqaalaysiin doonto. muddo 5 sano ayay siisay oo ay horumarinayso dhammaanba wax soo saarka beeraha, kalluumaysiga, waxbarashada, xirfadda loo yeelaya dadka iyo marka la isku dardaro horumarada oo dhan. inkastoo ay dowladahaas u ogolaadeen dhammaanba qodobadii ay soo jeedisay marka laga reebo ka nabadgelyada, waana taastan ka dhigaysa inaynu heshiiskan ugu yeerno midaan guulaysan, maadaama ujeedada ugu weyn Shiinuhu lahaa ay ahayd inuu halkaas saldhigyo ciidan ka dhigto geystana madaxyadiisa nukliyeerka ah. dowladaha wasiirku uu la kulmay oo ka biyadiiday in saldhigyo dalalkooda laga furto ayaa waxaa ka mid ah Simau, Tonga, Kiribati, Papua New Guinea, Vanuatu, Nauru. dalalkan ayaa ah dhammaantood kuwo aad u yaryar balse istaraatiijiyad weyn u ah dalka Mareykanka, maadaama xilligii uu socday dagaalweynihii labaad ee adduunka dowladda Mareykanka ay ku adkaatay si ay u soo gaarto dalka Japan oo ay la dagaalami lahayd, balse ugu dambeyntii ay ku baxsatay jasiiradaha yaryar oo halkaa ku yaala. waxaana xilligaa dowladda Mareykanka ku adkaatay in diyaaradaheedu ay soo gaaraan dalka Japan, maadaama aanay jirin tiknoolajiyad shidaal badan ay ku qaadan kareen diyaaraduhu xilligaas. inkastoo ay hadda jirto tiknoolajiyadaas, balse waa mid weli dowladuhu ay u baahan yihiin dalka ay weerarayaan inay ku dhowaadaan. dabcanna dowladahan si kastoo ay u yaryar yihiin waa kuwo la isugu qabsanayo mustaqbalka dagaalo dhici doona oo ay doonayaan dowladuhu inay midba midda kale u dhowaato, gacan sarreynta dagaalkana ay yeelato. haddiiba ay dhacdo dowladda Shiinuhu inay saldhigyo badan ka furato koonfurta badda Baasifiga, waxay khatar weyn ku tahay dowladda Mareykanka, iyadoo aan muranba ka taagnayn dowladaha Australia iyo New Zealand kuwaasoo kaabigaba u saaran. diidmada dowladahan yaryar ay diideen heshiiska nabadgelyo inay la galaan dowladda Shiinaha ayaa waxaa loo aanaynayaa in dowladda Mareykanku ay ka dambeysay. odayaal wixii arrintaa ka soo cusboonaada waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka like gareeya. mahadsanidin.